محمد مقعن محمد محمود عبسيك عبسيم يا عبسيك أنا ما أعرف محمد محمود عبسية وسياسيين تقبلوا صولي سناق يعين ayaanu Kalsan TV la hadlay markii ku soo dhawo Kalsan TV maxaad ka hadlaysaa waad mahadsantii marka hore horeysa hadaatiin bahada Kalsan TV wareysigaygan maanta waxa ay u kaleefay waxa weeye damqasho aan ka damqanayo qaasatan deegaamadan ka soo jeedo qaasatan Puntland oo runtii aan isleeyahay duruufaha jira iyo waxyaalaha ka jira awgeed yaani dadkaaga ku baraaruji qaasatan haddaan wax idin ka soo taabto Puntland waxa weeye waa 6 gobol ama 9 gobol markan ka soo qaado galbeedka gobolkii ugu dambeeyay oo gobolka Cayn waxa bariyahan ka jiray waxa weeye ku baarayn uu wada maamulka Zilayo oo runtii isku dayaya inuu dadka ku caburiyo waxaysan markaa maartay ay raali ka ahayn ama aysan maartay iyagu ay doonayeen inuu ku khasbo marka runtii haddaan nahay siyaasiyiinta goboladaas waxaanu u soo jeedinaynaa maamulka Zilayo inuu joojiyo isku dayga uu wado haddii uusan ka waatoobina kulli cawaaqib xumada ka dhalata waxa mas'uuliyadeeda qaadaysa waxa weeye waa Zilayo dadkan waxa weeye waa dad u dhashay deegaamada Puntland waa dad ka tirsan Puntland waxa weeye runtii ninna de ma khasbi karo oo waxa weeye maseer aysan maartay lahayn kuma khasbi karo marka runtii baaqaan soo jeedinayna waa ka weeye maamulka Somaliland ama gobolada waqooyi waxaan halkan talabaad aan maartay rabaa inaan fikirkayga ka dhiibto shacabka ka soo jeeda deegaamada Sool Sanaag iyo Cayn intii uu jiray systemkan uu hogaaminayo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Cabdilaahi Cumar Camey runtii waxaan oran karaa waxay qabteen wax qabad weyn bay ka qabteen gobolada Sool Sanaag iyo Cayn haday tahay waxbarashada haday tahay caafimaadka haday tahay asaasi kala martay arrimaha bulshada ay u baahan yihiin example haddaan tusaale soo qaato magaalada Buuhoodle kama jirin waxa la yiraahdo wada laamiya maantana waxay Buuhoodle maraysaa in yaani dhexdeedii laga sameeyo wada laamiya guusha runtii waxa gaarsiiyay waxa weeye waa xukuumadda ilaa Sarmaayo oo aynu ognahay waxa weeye ka tirsan deegaamada Sool Sanaag iyo Cayn oo manahan jirtay ayaa maanta waxa laga cabiyay waxa weeye biyo sida la jigeed walaalkayga qurba jooga maaragtay u dhashay goboladan ku soo hadaaqaya ama lagu barnaamijyay barnaamijyo aan jirin aaminsan fikir yaani dadka maartay aanu darahayn waxaan ugu baaqayaa walaal waxaad iimaansataa waxa weeye waa dalkaaga iyo dadkaaga oo Puntland waxa la dadka waxa ugu litaa la yiri tarantii la culuw iyo tulkii la culuw baa dadka ugu litaa marka waxaan leeyahay siyaasadda maanta rag badan oo u dhashay deegaamadan ay hagayaan in maartay hadda tiin dadkii deegaamadaas maartay u dhashay inaad maartay waxaan qabtaagtaan ma fiicna sidaas la jigeed waxaan mar labaad idinku boorinayaa waxa weeye waxa la maraya maanta waxa weeye waa waqti cusub oo adduunku wax ku kala gadanaya waxa weeye teknolojiyad cusub maxaan ku raadayay la marayo maskaxo cusub maanta in aad marka dadkeen iyo deegaamadiinii aad u horseedaan maxaan ku raadayay waqti dambe waa laga fiican yahay waa laga qurux badan yahay waxaan leeyahay aqligu ha shaqeeyo maskaxdu ha shaqeyso aqoontu ha shaqeyso waxa weeye u soo jeesta sidii aynu ula san qaadi lahayn ummadda sidii dadka yaani hooyun beenku ay noolaan lahayn inuu noolaano oo deegaamadeena wax ugu qabano dadkeena wax ugu qabano oo aynu ula san qaadno walaalahena kale Puntland bal waxaan u soo jeedinayaa shacabka ku dhashay deegaamadana midna waxaan ka uga baaqayaa shacabka gobolada bariga ama reer bari ama reer Boosaaso waxaan leeyahay walaalahay reer bariyow dagaal wiil baa ku dhintay laakiin wiil kuma dhasho maanta waxyaalaha ka dhacaya Boosaaso runtii haddaan nahay siyaasiyiinta u dhashay deegaamadan Sool Sanaag iyo Cayn aad iyo aad bay noo damqaysaa waxaanu leenahay walaalayaal inta ku ekeeya inta ku joojiya ilaaha baan idinku dhaarshay waxa weeye maanta cadowga Puntland ee doonaya in ay curyaamiyaan Puntland walaalayaal yaan loo faa'iideen yaan loo horboodin yaan loo hor socon waxa weeye xaaladda maanta ka dhacday Boosaaso inta lagu joojiyo haddaan mid idin sheego maanta
tan iyo maalintii waxa weeye systemkan cusub uu maaragtay ka hirgeliyay magaalada Boosaaso garoonka caalamiga ee Boosaaso International Airport waxaa jira in cadowga Puntland ay ku taamayaan sidee Boosaaso looga dhisay garoon caalami ah sideese iminka loo soo wadaa dekad caalami ah in laga dhiso magaalada Boosaaso waxa weeye shacabka reer Bariyow waxa weeye haddaan anagu siyaasiyiinta galbeedka Puntland walaalayaal maanta waxa weeye aqal xumo iyo maxaan ku raadayay isu fiirsi ba anaga deegaamadeedii ku maqan yihiin tusaale haddaan idin soo qaato sool sanaag yacayn waxa weeye isu fiirsi badan oo siyaasiyiinta ka soo jeegta deegaamadaasi ay horseedeen ba maanta cadow haystaa oo cadowga faa'iideystay waxaan idin leeyahay idinkana yaan cadowga idinka faa'iideysan cadowga hawloogina waxa weeye Puntland waxa weeye dhaqaalaha haysataan waxaad haydeen hoygii dhaqaalaha waxaad haydeen hoygii ummadda Soomaaliyeed ku soo hiratay waxa weeye maanta looma baahna inaad ku ciyaartaan horumarka iyo maxaan ku raadayay iftiinka Puntland u baxay maanta ee aad idinkuna reer barahaan deegaanka ugu tihiin waxa ku ciyaarina aqligu ha shaqeeyo waxa hadaatiin ismadii hadaatiin waxgaradkii hadaatiin siyaasiyiintii walaalayaal arinta hal la hojiyaan wadanahay sidaas aan idinku baaqinaa haddaan soo jeesto Cali Khaliif Galeed waxaan ku leeyahay adeer waxa tahay siyaasi weyn waxa tahay siyaasigii beesha daarood ugu weynaa ama ugu tunka weynaa waxa nasiib daraa maanta in khayrka halkii maanta ay talaabada ka qaadi lahaayeen in aad maanta ku soo noqoto gurigaaga burbur waa nasiib daro waxaan ku leeyahay waxa maanta dadkan deegaamada iyo dadka ay u baahnayeen waxa weeye in aad aqli saliima inaad keento bal haddaan ku su'aal ku weydiiyo Cali Khaliifow waxa weeye maanta Soomaaliya dawladda federaalka maamulay samaysay maamuladii ay samaysay waxay ku soo gabagabaysay maamulka Hiiraan iyo Jawhar xagee marka maanta kaga jirta maamul khaatumaha oo ay dawladda federaalka ay wado ama international community-ga ay saboodayaan ama ay igad saboodayso ma jirta waa maya weeye dadka waxa weeye ha wareerinin dadka waxa weeye reer guuraraac waayo waxa weeye arwaa loo kala sheekeeyaa ka dhigin waxay dadku waxaan jirin inaad ku maaweliso ma banaana ayaan ku leeyahay Cali Khaliifow waxa lagaaga baahan yahay oday baa tahay daarood siyaasi daarood baa tahay inaad hogaamiso aad Puntland loogu timaado ayaanu doonaynaa oo aad furato xisbi ama khaatimo wala bax ama waxa doonto wala bax inaad Puntland loogu timaado waxa ay dadkaaga aad la sanqaado baa kaaga fiican in maalinba lagu yiraahdo ama erigo baa la baxsay ama meelbu maray taa waxa weeye waa nasiib daro waxaan leeyahay war dadka la sanqaad saasan leeyahay Somaliland isku dayga gobolada Soomaaliya waxaa jira isku day baa jira runtii waa la og yahay ayaamahan isku dayga socda runtii dawladda Puntland runtii iyadoo runtii aan dadka waxba habeeraatay maartay aan kala harayn haddana wax ku dhaliilayna oo waxaan ugu dhaliilayna waxa weeye nin baa il u bad qabtay isha kana wala ishii maanta u bad qabtay Puntland gobolada Sool Sanaag Cayn waxa ahayd gobolka Cayn baa ahayd gobolkii Caynna maanta waxa weeye isku weer baa laga hayaa oo waxa ka hayay waxa weeye maamulka Siilaanyo baa ka haya ilaa iyo hadda lagama hayo Puntland wax haba yaraatay ku aadan difaaca dalka lagama hayo xukuumadda Puntland ma garan karno madaxweyne Cabdi Maxamed Cali Gaas waxa uu uga aaminsan yahay ilaa iyo hadda ma garan karno waxaan leenahay madaxweyne maanta waxa loo baahan yahay ama inaynu ka samirno gobolka Cayn oo awalba waxa way walaastay dhulka inta badnayde ama waxa loo baahan yahay in talaabo degdeg ah aad ka qaado waxa way maamulka Siilaanyo isagu soo anqaltaagaya inuu ku qabsado magaalada Boodle